noloshaada markii aad dhehaysid stress ayaa ahaayo oo waxaan stress ayaa igu khasbay camal hadhow markii aad magac yeelatid ama followers badan aad heshid waa ku khasban tahay inaad bulshada usoo gudbisid waxyaaba wanaaga marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta youtube channelka daawanaysaan waa caraaleyna fadlan haddii muuqaalkan uu kusoo gaaray subscribe like share commentiga adiga ayaan wakiil kaaga dhiganay muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay ama aan kaga hadli doonaa dhaqan xumada soo badanaysa waayadii ugu dambeeyay social media khaasatan aaladda TikTok ama TikTok ma ahan hip hop maqaayadaadan ka dhex qadayna waana hadlayna haddaan rabana waxaan rabaa inaan kaga hadlo dhaqan xumada waayadii ugu dambeysay kusoo badanaysay baraha bulshada khaasatan aaladda TikTok wuxuu noqday meel lagu soo bandhigo waxyaabaha aadka u xun khaasatan dhanka iyo dumarka ayaa u badan waxyaabaha soo bandhigidda waxyaabaha muuqaalada aadka u xun inkastoo ragga ayagana ay u bateen dhanka iyo inay usii guuraan dumarka xaggooda sidoo kaleeto ragga kama marna dhaqan xumada ragga waxay usii qulqulayaan dhanka iyo dumarka rag badan ayaa soo dhaweyn loogu sameeyey xaflada xarig jara loo sameeyey si loogu soo dhaweeyo dhankaas iyo dumarka goosasho badan ayaa imaaday oo rag badan oo waxaa la arkay dhanka iyo dumarka u goosanaya dumar badan ayaa soo dhiga ayagoo muuqaalo aad iyo aad anshax xumo ah soo bandhiga waxaa ka mid a muuqaaladan bal aan isla daawan waxayba noqotay in challenge laga sameeyo muuqaalkan sidoo kaleeto waxaa sameysay farsoon balbalaarka inkastoo aysan hubkeeda lasoo bixin laakiin balaan daawan ayadana challenge ahaan waxay ugu soo sameysay muuqaalkan wuxuu usii socdaa inuu noqdo muuqaal challenge weyn mar kaleeto soo laba kacday inkastoo hablaha dhaqamada aad loogu fiicnaa in ay sameeyaan ragga qaar ayaa commentiyada ugu soo qorayaan keep going noloshaada markii aad dhehaysid stress ayaa ahaayo oo waxaan stress ayaa igu khasbay camal hadhow markii aad magac yeelatid ama followers badan aad heshid waa ku khasban tahay inaad bulshada usoo gudbisid waxyaaba wanaaga marka hadhow intaa gadaal ka wanaagsanaan lahayd hadda wanaag kusoo gal si hadhow markaas maxaaga wax qurux badan ay kugu wada noqdaan laakiin maanta waa xumahay beri ayaa wanaagsanaan doonaa kolley soomaali way ka haysaa soomaali wax ma ilowdo muuqaalkan bal daawada asigana waa muuqaal hore oo isxasuusina soomaali waxay meel dhigato way dhigatay waa ama 10 sana kasoo wareegata ama 100 sana kasoo wareegato waa un lagu hayaa oo muuqaalkaaga adiga ayaa iskale ama kabtaada adiga ayaa iskale shayga meeshaan ugu tagtid ama baraha bulshada ha ahaadaan ama meel kaleba ha noqoto waa lagu keenaa marka wax walba adiga ayay faar kugu noqon doonaan hadhow haddii aad beri ka maalin magac yeelatid ama hankaaga maanta meeshuu taagan yahay meel ka sarreysa ah u jaanqaad maagtid beri waxaagi way ku yaalaan adiga ayay waxay ku yihiin keed adiga aad keedsatay ha keedsanin xumaan oo u jeeso dhanka iyo wanaaga aad ku mahadsantihiin muuqaalkan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka codsanayaa muuqaalkan haddii uu kusoo gaaray subscribe like share comment adiga ayaan mar kale wakiil kaaga